waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeega cusub ee aan ugu magac darnay wararka toddobaadkiyo maanta. barnaamijkan ayaa ah barnaamij aan ku soo diyaarino wararka doorka ee ugu muhiimsan ee ka qabsoomay dalka. wararka toddobaadkiyo maanta ayaa ah barnaamij aan si toos ah uga soo baxa sheenkeyga Qaran TV ee aan ku leenahay bartaasi YouTube-ka iyo bartaasi Facebook-ga. sidoo kale barnaamijkeega toddobaadkiyo maanta ayaa ah wararka xulka ee toddobaadka ee dalka. intaasi haddaan kaga imano imikiyo haddana waxaan ku bilaabaynaa wararka xulka ee toddobaadkiyo maanta. qodobada ugu muhiimsan wararka toddobaadkiyo maanta ayaa ah in 17 bishan December ee sanadkan 2020 isku soo baxyo ballaaran ee dhalinta bulshada rayidka ee ka dhigeen garoonkaasi kubadda cagta ee Alxaaji Xasan Guleed Abtidoon. qodobka labaad ee wararka toddobaadkiyo maanta ugu muhiimsan ayaa waxa uu yahay soo dhaweynta madaxdii ka soo qayb gashay shir madaxeedkii urur goboleedkaasi iyo shir madaxeedkii sida rasmiga uga furmay hoteelkaasi caalamiga ee Capiski Palace 19 ilaa iyo bisha 20 bisha December ee sanadka 2020. qodobkeega saddexaad ee barnaamijkeega wararka toddobaadkiyo maanta ayaa isla waqtigii 20 bishii December ee sanadka 2020 markii uu madaxweynuhu uu ka soo jawaabay codsiga bulshada rayidka iyo dhalintaasi madaxweynaha ka dalabtay in uu isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta bisha Abriil ee sanadkan 2020. qodobkeega ugu dambeeyo ee barnaamijkeega wararka toddobaadkiyo maanta ayaa waxa uu yahay in 21 bishan December dalka uu ka furmay kalfadhiga aan caadiga ahayn ee siyaasadda baraha. intaasi waxay hayeen qodobadii barnaamijkeega wararka toddobaadkiyo maanta. imikiyo haddana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi oo faahfaahsan. bismillaahi raxmaani raxiim. 17 bishan December ee aan ku guda jirno garoonka caalamiga ee Stade Alxaaji Xasan Guleed Abtidoon waxaa ka qabsoomay isku soo baxyo ballaaran oo iskugu soo baxeen dhalin aad u tiro badan iyo dadweyne. isku soo baxaasi ayaa waxa ay dhalintu ay kaga dalbayeen madaxweyne Geele in uu mar kale isku soo sharaxo doorashadaasi madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta bisha Abriil ee sanadkan nagu soo eedan 2021. qormo ballaaran oo aan ka soo diyaarinay isku soo baxaasi ka qabsoomay garoonkaasi caalamiga ee Stade Alxaaji Xasan Guleed Abtidoon. daawadayaal la socod wanaagsan. 17 bishan December ee aan ku guda jirno garoonka caalamiga ee Stade Alxaaji Xasan Guleed Abtidoon waxaa ka qabsoomay isku soo baxyo ballaaran oo ay iskugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan oo iskugu jira dhalinyaro, ciroole iyo haween iyaga oo ka dalbanaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele in uu sii hayo tallaabada oo mar kale isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta bishan Abriil ee sanadkan nagu soo eedan ee 2021. isku soo baxan ayaana ku koobnayn caasimadda oo sidoo kale ka qabsoomay gobolada dalka gudihiisa. fikirkan isku soo baxan ballaaran waxay ka timiday dhalinta jamhuuriyadda Jabuuti oo ku ballamay garoonka caalamiga ee Stade Guleed 17 bishan December ee aan soo dhaafnay. dhalintaasi iyo dadweyne aad u fara badan ayaa ku soo qulqulayay garoonkaasi Stade Guleed. sidoo kalena xaflado ayaa ka qayb ahaa iyo heeso iyo sugaan ku soo bandhigeen hobolada qaranka halkaasi Stade Guleed.
nahay ka socoto afkoodan ku hadlaya Afrika iyo Aasiya Europe America dakastaba kolkaan eegnay olol iyo dabba baxaya hadday tale buraacato igu dido xaaja garan waydo isku gacasaydo garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti soo gunaanade goblihiyo ciyaaraha ninkii garan ha loo daayo garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti soo gunaanade goblihiyo ciyaaraha ninkii garan ha loo daayo dhalinyarada ka soo qayb galay isku soo baxan ayaa waxa ay ku midoobeen in madaxweynuhu uu maqlo codsigooga una ka aqbalo sida ugu haboon iyaga oo uga gon leh in madaxweynaha uu mar kale isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta dalka bisha Abriil ee sanadkan nagu soo eedan 2021 dhalintaasi baaxadda weyn iyo dadweynaha sida eedka u fara badan ayaa waxa ay ka gon lahaayeen in madaxweynuhu uu aqbalo baaqooga taasina waxay ka turjumaysaa kalgacaylada iyo horumarka baaxadda leh ee taabanaya kaabayaasha kala ah dhaqaalaha siyaasadda tacliinta iyo waxyo kala duwan oo u jeexay dawga horumarneed ee dalka taasina waa mid la taaban karo sidaasi awgeed barnaamijyada horumarneed ee madaxweynuhu oo dhidhibada u taagay ayaa ah kuwo maragmadoona oo ku qasabtay dhalinta bulshada rayidka in ay baaqa u diraan madaxweynaha sidoo kalena hogaanka uu si hayo si uu u dhameystiro hanaanka horumarneed ee dalka dhalinta dalka ayaa ka hayo madaxweynaha ballan qaadyo ku saabsan shaqo abuur baaxad leh oo lagu ciribtirayo shaqo la'aanta iyo baahida bulshada iyo mashruucyo kale sida barnaamijka guriyeynta oo dhismooyin baaxad leh ay ka socdaan dalka taasina waa hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo uu ku rabo in dalka la sugo Zughubidonville waana mashruuc uu qof waliba oo muwaadina uu helo guri u gaar ah dhinaca kale rabitaanka ay bulshadu ay kaga codsanayaan madaxweynaha in uu mar kale sii joogo hogaanka ayaa ah mid u muuqata dadweynaha in siyaasadda madaxweyne Geele ay tahay mid hufan oo la taaban karo sidaasi awgeed waxa sababay in dalkeenu uu noqdo dalka kaliya ee geeska Afrika isagoo u nabdoon ugu xasiloon ay ka socdaan horumar la taaban karo oo baaxad leh sidaasi awgeed waa arrimaha u sababay in dhalintu ay iyagoo isku duuban duqeyti haween ayaa maalintii Sabtidii 17 December ee sanadkan 2020 ha noqoto caasimadda gobolada gudihiisa ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha in uu mar kale uu isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta dalka bisha Abriil ee sanadkan nagu soo eedan ee 2021 kadib isla maalintii isku soo baxa ayaa waxaan la yeelanay bulshada rayidka dhalinta soo hindisay barnaamijkan taariikhiga ayaa waxay ka dhiibteen reegooga waxaana yiraahdeen sida tan magacaygu waxa la Saacad Xuseen Samatar waxaan galaa Silmula Paris halka waxaan soo baxay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ayaan soo baxay anagoo hooyadii karseeda waa taageersanahay ani hay baan leenahay mar saddexaad mar afraad shanaad waxa weeyaan waxaan soo baxnay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele magacayga Axmed Yaasiin Axmed waxaan ka socdaa ururka balbala ee waliba qaybta maarta balbala caadi weeyaan insha Allah hanbaliyo halka ka si amaqaad balanahay asamato Allah insha Allah السلام عليكم waxaan salaamay Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaheena dalka jiro joog baan leenahay waxaan salaamay xaajadiisa Khadra Xayd
ayaan salaamayaa dhalinyartayda waxaan ku leenahay jiro joog aabo ريجانيسكي كنسو عندنا هاي كارثة ما تسمعيل بوصل بحني بريسيدون إسماعيل عمر قال لي يا سلام يا ودي ساخد رحيد يا سلام يا جانيس كدانا ما كنت جعلنا بإسماعيل ما كلنا هاي باهي حاجة عن واقع كانت ما كنت جعلنا ما كلنا فيفغ بيفا إسماعيل يوم الجاي ما كلنا كارثة بانو كلنا إسماعيل أنا على هذا يونزي أنا على يونزي عليكم ورحمة الله وبركاته يمي قاعد سعيد علي حمدوي ككماتين بكدوسي تويسا en tant que jeune volontiers économique nouveau mandat préconan تو عاني حالة تارجيني نسوتني أبتنا كدهي تو جناسكي مانغو متكو عم بالله نبارو هبوا أبشر كوكينا فيف إسماعيل عمر قلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فيروز محمد فارح مقعليو تساكونا أرحبك فخنانو أساكو أدعى لك أكي كاني ميتين بارو هبا بارو هبا لينو كيني أساكو عارتي أولا مراعيناي كابليسيني أساكو بارو هبا كاكينا نمي دائما أنا كورو قتنانو بارو هبا وكوكي حنو كورو قتنانو شعبي كورو قتنينو كورو قتنانو ها أرحبال أساكو تمراعيناي ولا ما تنتوعي تساكونا عرمعكو كوتكيتي عرمعكو أساكو كو ننجحي له كوكي حنو إنني بارو هبا أوريه كورو قتنانو فيبي يوجينا فيبي إرببينا أنا هاي إسماعيلنا يوجي أنا هاي نبارو هبا أنا هاي أرحيانو كورو قتنانو أرحي imika haddana waxaa ku sii soconaynaa qodobada kale ee wararka 19 bishan December ee sanadkan 2020 madaxda urur goboleedkaasi IGAD ayaa soo gaaray dalka si ay uga qayb galaan shir madaxeedkaasi ka qabsoomay axadii aan soo dhaafnay madaxdaasi ayaa si rasmi ah u soo gaaray dalka si ay uga qayb galaan shir madaxeedka 38aad aan caadiga ahayn ee urur goboleedkaasi IGAD madaxda soo gaaray dalka garoonkaasi caalamiga ee dayuuradaha waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi qormo ballaaran oo aan ka soo diyaarinay urur goboleedkaasi IGAD ee ka qabsoomay axadii bishii 20 December ee sanadkan 2020 daawasho wacan daawadayaal sagaal iyo tobankii bishan December ee sanadkan 2020 madaxda urur goboleedka IGAD ayaa soo gaadhay dalka sidii ay uga qayb galaan shir madaxeedka ka qabsoomay axadii aan soo dhaafnay madaxdaasi ayaa si rasmi ah u soo gaadhay dalka si ay uga qayb galaan shir madaxeedka 38aad ee aan caadiga ahayn ee urur goboleedkaasi IGAD shir madaxeedkaasi waxaa soo hindisay madaxweynaha amba gudoomiyaha xilka haddan haya ee urur goboleedka IGAD ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Abdullah Hamdok shirkaasi waxaa lagu soo qaaday laba mawduuca ugu horeeya ayaa ku saabsan qaxootiga Etoobiyaanka iyagu ku sugan xuduudda u dhaxeeya labada dal ee Suudaan qaxootigaasi oo iyagu ka soo baxsaday colaadda ka taagneyd gobolkaasi Tigreega ee dalkaasi Itoobiya colaadaasi oo noqotay hadda mid suushay kadib markii xukuumadda Itoobiya ay gacanta ay ku dhigtay sugidda ammaanka ee dalkaasi Itoobiya taasina waxay timiday kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu siiyay taageero siyaasadeed uuna u muujiyay dawladdaasi Itoobiya si dalkaasi lagu soo ambaqaado amni iyo nabadda gobolkaasi Tigreega ee ka tirsan dawladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya sidoo kale xubinta kale ee lagu soo qaaday shir madaxeedkaasi urur goboleedkaasi IGAD ayaa khilaafka u dhaxeeya dalkaasi Kenya iyo dalkaasi Soomaaliya madaxdaasi oo ka wada xaajootay isla waqtigii shir madaxeedkaasi IGAD khilaafka u dhaxeeya labada dal ee kala Soomaaliya iyo Kenya urur goboleedkaasi IGAD ayaa ka kooban dalalka kala ah Djibouti Ethiopia Kenya
Eritrea Suudaanta koonfureed iyo Suudaanta waqooyi iyo dalkaasi Uganda wadamadaasi ayaa ah wadamada ka soo qayb galay ee xubin ka ah urur goboleedkaasi IGAD madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyay shir madaxeedka 38aad ee aan caadiga ahayn ee urur goboleedka IGAD ee ka furmay hoteelka Campeski Palace 20 bishii December ee sanadkan 2020 shir madaxeedkaasi waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Suudaanta koonfureed iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Abdullah Hamdok shir madaxeedkaasi 38aad ee aan caadiga ahayn ayaa waxaa looga hadlay qodobada kala ah qaxootiga Ethiopiaanka ee gaaray dalkaasi Suudaan khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya caabuqa COVID-19 soo kicinta dhaqaalaha dawladdaasi xubnaha ka ah urur goboleedkaasi IGAD qodobkayga saddexaad aan kaga waramayno barnaamijkeega wararka toddobaadkiyo maanta ayaa ah isla waqtigii bishii 20 bishii December ayaan soo dhaafnay isla sanadkan 2020 ayaa madaxweynuhu uu ka soo jawaabay codsigii dhalinta iyo bulshada rayidka ee ku aadanaa doorashada madaxtinimo ka qabsoomi doonta bisha Abriil ee sanadkan nagu soo eedan ee 2021 kadib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si rasmi ah uga soo jawaabay codsiga bulshada rayidka iyo dhalinta isku duuban ee rabta madaxweynaha kuna taageeraysa in uu mar kale isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta bisha Abriil ee sanadka nagu soo eedan ee 2021 qormo aan ka soo diyaarinay daawasho wacan kadib banaabaxyadii ballaarnaa ee dhalinta dalka bulshada rayidku ay ka dhigeen garoonka caalamiga ee kubadda cagta Stade Guuleed ay ka soo qayb galeen dad gaadhaya kumanaan kun oo qof kuwaasi oo ka dalbaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele inuu maqlo codsigooga uuna ka soo jawaabo dhalinta baaxadda leh iyo bulshada rayidka ayaa waxa uu codsigoogu ahaa mid ay kaga dalbayaan madaxweyne Geele inuu mar kale isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta dalka bishan Abriil ee sanadkan 2021 kadib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si rasmi ah uga soo jawaabay codsiga bulshada rayidka iyo dhalinta isku duuban ee rabta madaxweynaha. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous demander une question hors contexte aujourd'hui. Monsieur le Président, la jeunesse djiboutienne donc, a exprimé ce jeudi, elle a exprimé son désir, Monsieur le Président, et ils ont lancé un élan, un appel dans la capitale et dans les régions de l'intérieur, Monsieur le Président. Quel est votre ressenti face à cela et que leur dites-vous à la jeunesse djiboutienne, Monsieur le Président? Je suis éminemment honoré, n'est-ce pas, d'abord. Ensuite, j'ai été très sensible à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Je n'ai pas cru mes yeux, n'est-ce pas? J'ai été pris de... mais par un sentiment de solidarité, par le sentiment de solidarité que j'ai eu, l'appel d'une jeunesse mûre, n'est-ce pas? Et qui en veut, qui pense à son avenir, qui a fait un chemin avec moi, qui veulent continuer à le faire. Et je suis avec eux et je leur dis, je suis partant. khayarta kala duwan ee sida tooska nolol socotay qodobkeega afraad ee ugu dambeeya barnaamijkeega cusub ee wararka toddobaadkiyo maanta ayaa ah isla 21 bishan December ayaan soo dhaafnay 2020 ayaa waxa ka qabsoomay fadhiga siyaasadda baraha munaasabadaasi
waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha isla 22 bishan December ee aan ku guda jirno ee sanadkan 2020 munaasabadaasi oo ka qabsoontay gurigaasi ummadda faalo intaasi ka badan daawadayaal la socod wanaagsan iyadoo uu hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ka dhaqaajisay guriga ummadda 22 bishan December ee sanadkan 2020 kalfadhigan oo looga baraandigay siyaasadda qaran ee mucaalinka kadib markii uu soo gaaray guriga ummadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay weeliso marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayde waxa halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka mudane Mustafa Maxamed Maxamuud fadhigan ayaa waxa uu daba joogaa kulano taxana ah oo wasaaradda waxbarashadu ay la yeelato ugu yaraan 5,000 oo macallin ah si looga qayb geliyo siyaasadda qaran ee ku aadan macallinka fadhigan laga dhaqaajiyay 22 December ee sanadkan 2020 ee hormoodka uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ah mid lagu dejinayo siyaasadda qaran ee ku wajahan macallinka munaasabada fadhiga qaran ee macallinka waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka iyo shakhsiyaad sarsare oo ka socda wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo boqolaal macallin ah oo ka socda dugsiyada kala duwan ee dalka siyaasadda qaran ee macallinku waa mid ka mid ah tiirasha higsiga waxbarasho oo tayo leh kadib markii uu madaxweynuhu uu si rasmi ah u dhaqaajiyay fadhigaasi amba shirkaasi waa mid ay ka soo bixi doonaan istiraatiijiyad qaran oo ku aadan macallinka istiraatiijiyadaasi oo qayb ka noqon doonaysa tiirasha waaweyn ee qorshaha higsiga waxbarasho tayo leh ee wasaaradda waxbarashada qaran ee tababarka xirfaduhu ee iyagu ay ka amba qaaday muddooyinkan dambe khayarta sida tooska nolol socotay qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijkeegii wararka toddobaadkiyo maanta isla maalinteeda intaan barnaamij lamida aan ku kulmi doono daawadayaal waxaan nagu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo